السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta joogtiin dunida daafeeda waa walaalkiin Cabdi Fataax Xidileh isku soo noqod wanaagsan. Yes, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo ama isla daawano video aad iyo aad u murugo badan, murugadiisa xambaarsan dhacdo ka dhacday Soomaaliya ayuu ka hadlaa videogaas. Aniga ahaanteeda videogaas maanta ayaa arkay, laakiin qisadaas qoraal qusay ayaa hor u akhriyay. Ay shalay ahayd laakiin waqti maqribada kadib run ahaantii aad iyo aad ay u fil daran tahay. Qof walaashaada kalsooni kugu imaaday danta inaad laga yaabay waxa ka rabaa ama dana ka leeyahay inay caawisada u baahanahay. Laga yaabay dadku waxa ku sameeyay isku iskool yihiin SDS qofkan iskuul iyo wuxuu ka wareysay ama wuxuu ka rabaa caawimaad ugu tagtay ama kugu imaaday inaad dhibkaas u geysatid sababtoo ah waa gabar Soomaaliyeed, waa walaashaada, waa hooyadaada camal, waa gabadha dhashay camal. Soo marka inaad intaas u fikirtidna way fiicneed tal ahaanteeda niyadeeda waxa ku jiro waa taas ama sida u fikir lahay ama aad jeclahay gabar kasta Soomaaliyeed wanaageeda. Soo marka gabdhahan waxa leeyahay Soomaaliya ku nool iska ilaaliya dadka qaar marka la kulmaysiin. waxa laga yaabaa inaad ka filanaynin xumaato, waxa laga yaabaa walaaltinimo inaad ugu tagtay, waxa laga yaabaa yani qofkan isdhees qofka asxaabta kugu dhow gabadhan waxa laga yaabaa dadka waxaan dhibkan u geystay ruwaayada ku noqday maska ku noqday in ay yihiin dad aad iyo aad ugu dhow asxaabteeda markii la dhaho ama qof ay xataa xiriir kala dhaxeeyay. soo marka insha Allah inaan isla daawano videogaas. haddana waxaan arkay videogi oo isla qisadaas quseeyo. soo marka daawasho wanaagsan. waxa aan ka dhihi karo waxa aan rabo inaan ka dhaho iyo wixii fikirkayga ayaa ka dhiibanaa insha Allah. soo marka daawasho wanaagsan. halkan waa guriga Xamdi Maxamed Faarax, waa ardayad sanadkan qalin jibisay oo waxa ay ka qalin jibisay fasalka saddexaad ee dugsiga sare waxaana ay gashay imtixaanka dawladda. maanta gurigan waxa ka jirta murugta Xamdi kadib markii kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho isla mar ahaantaasina la dilay. subhanallah. of course guriga murugo way ka jiraysaa waayo gabar wax baranaysay waxbarashadeeda waqti xaadirkaas dhameysatay misna in la kufsado haddana dil loogu sii daro murugtaas ka weyn ma jirto run ahaanteeda aaminsanahay. waxaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal warbixinta dhabta ah iyo sida u dhacay kufsiga Xamdi. halkan daawadayaal waa halka sida dhabta ah nolosha Xamdi uga jiray. qolkan waa qolka sida gaarka Xamdi ay nolosheeda ugu tacaamuli jirtay. sariirtan waa sariirta Xamdi ay jiifin jirtay. sidoo kale buwaagtan halkan yaalo waa qaar ka mid ah buwaagta wax ku baranaysay, waana galaaska ugu dambeeyay ee dugsiga sare oo sanadkan Xamdi ay ka qalin jibisay. waa Xamdi Maxamed Faarax ee gabadha la kufsaday. buugan waa buug fiiskiisa. waxaad u jeedaan in galaaska 12aad waxay ka mid ah Xamdi ardayda sanadkan qalin jibiyay oo galay imtixaanka dawladda. sidoo imtixaanka dawladda oo sida ogeydeen intaasoo kun arday ku dhacday. qofka ka qalin jibiyay farxadiisa intee la faclahay qof kasto imtixaankaas qofka gudbay farxadiisa intee la faclahay qof kasta ayaa dareemi kara run ahaantii. haddana qisada ku dhacday aad iyo aad ay ugu xumaa ani ahaanteeda run ahaantii wallahi wax oo aad iyo aad loogu murugoodo way tahay of course, laakiin dadka dhibkaas u geystay tolow waa kuma kala boorsadan waa ku jiro dharka Xamdi oo waxa ay ahayd Xamdi nolosheeda meel ku kooban qolkan 10 sano muddo ku siman ayana ku sugan tahay magaalada Muqdisho. waxaana loo sheegay daawadayaal inay kufsi u geystaan ugu yaraan 2 qof oo lagu eedeeyay kufsigaas. haatana waxa u xiran ku dhawaad 6 qof sida ay noo sheegeen ehelka oo aan la hadalnay. 2 qof ayaa kufsatay, laakiin eedeyntaas kufsigaas eedeyntiisa waxa u xiran 6 qof. 6 qof 2 ka mid inay tahay ahaan ayaa loo xiray dadkaas oo waa laga shakiyay. Xamdi Tahliil waa maamo soo korsatay Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax oo gurigan ku nooleed. waxa ay TV-ga Shabeelle faahfaahin ka siinaysaa siday wax u dhaceen iyo Xamdi sida loo kufsaday dilkeedu sida u dhacay. Xamdi waxaan ka ogahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun u baan leenahay. waa dhacdo xanuun badan oo qof kasta Soomaaliyeed ay ku dhacdana aad u xanuujinayso, waana midaan la isweydiin qof kasta. wallahi dhacdo aad iyo aad xanuun badan waaye. teeda kale waxa waay maamada hadda la wareysanayo gabadha ay soo korsatay. soo gabadha iida soo korisay 10 sano muddo ay gabadhaas la nooleed maamadan. soo qof oo dad kale ama qof oo familkiisa dad kamid ah la nool laakiin hooyadiisii aabiisan ahayn
waa dareemi kartiin rajada oo nolosha kala haa karo, waa dareemi kartiin rajadiisa intay la faca karto. waayo sababtoo ah qof kasta wuxuu ku fikirayaa qofkan ama familkan kusoo koriyey abaalkooda si wanaagsan u gud, meel iska soo saar. qof waxbarashada jecel haddana ku dhacdo waana dhacdo xanuun badan, dhacdada nagu dhacda anaka. waaye waxa ku dhacay cadday maxay ahaayeen? waxa ku dhacay kolay anaga in dabaq laga soo tuuro 8 biyaanaha naloo sheegay. waa gartay. waa ka kufsi ma jiraa? waa la kufsaday waana la soo riday sida naloo sheegay saasuuna. waxay ka tantay kolay gabadha in la kufsaday ayaa haddana waxaa laga soo tuuray dabaq 8 biyaano ah ama 8 dabaq, yani 1 2 3 4 ilaa 8. subxaan allah. anaga hadda meel aan ku ogeyn ma jirto inay gabar ama socoto ama meel aadan qofaan ama ku ogeynay ama aan ku xisaabtamayna ma ahayn. inay ayadeed un dhar usoo dhaqaydo un bay noo sheegtay, jimco kastana ay aadi jirtay usoo dhaqay jirtay. gabar bixi jirta maahan, gabar socod iyo waxaas ku noqonina ma ahan dhada maamada. nolosheeda dhan guriga ayay ku koobneed, waxayna inoo sheegtay in ayadeeda ay dhar usoo dhaqayso, laakiin ajisheeda ayaa ku jirtay, waqtigeeda ayaa intaas ku ekaay. hadda anaga waxa geeya haddaan maanta ognahay meydna ma waraysan karno, wixii dhacana ilaahay unbaa qaadi ku eema, anaga waxba kama aan ogin. mas-uuliyad waa ku haysay qof la soo korsaday, akhlaaqan edeb leh, wax la baray, lagu soo dadaalay ilaa 10 sano in wax la soo barayo, lagu soo dhibtoohayay oo ogtahay waaye. waa da'da ama 20 xeerka waxbarashada dugsiga sare ay dhamaysaa hadda. jaamacada u diyaar gareynaysa hamiyad jaamacadeeda in la helo. wallahi ilaahay baa qaadan ku aniga hadaan ogahay mustaqbalkeeda dhan ayaa horyaalay, oo waayo qof 20 ilaa 21 sano u dhaxaysa ay ahayd maamadan. of course mustaqbal aad iyo aad u weyn ayaa u dhimnay. nasiib run ahaantii videoga waxaa ka dhow ma aqaano, laakiin nasiib daawan waa soo qabsanaya samaha. rajadeena kolay waa 100% in ilaahay uu qof anaga waana la dulmiyay, waana la dhibaateeyay, dhibaatadina loo geysan in ilaahay noo soo ifiyo un baan rajaynaynaa. marnaba ma qabaani haysaa ay ku bixi jirtay. gabar waa taa wax waa shuka. horta run ahaantii qof qalad laga galay, qofka kaliya ee u dacwo karo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala. sababtoo ah walaa dowladaanan ogeyn qofka dhibkaas geystay, dadka meesha joogay inay arkin laga yaabaa, ama dabaqaas dadaa degan oo dhibka ka dhacay, ama hotel ha ahaado ama guri caadi ha ahaado, laakiin waxaa u maleynayaa hotel inuu yahay. sababtoo ah qoraalada iyo waxyaabaha arkaya waxaa ku qorneed hotel inay ahayd. soo marka insha allah dadka dhibkaas geystay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ilaahay xaq ka soo ifiyo ayaa ugu baryaa. wansanaysay laakiin wax uu guriyeed ugu imaad un baa shaqaysan jiray. waxaanaga inay meel aad aan ku ogeyn ma jirto. waxaan la taaganahay cabdiraxmaan xuseen oo abti u ah xamdi maxamed faarax, allah u naxariistee, oo kufsi wadareed lagu geystay gudaha magaalada muqdisho, ismar ahaantaasina la dilay. kusoo dhawow TV-ga Shabeelle, waxaadna kadib iga warantaa ilaa iyo hadda baarista la sameeyay booliiska iyo CID-da maxay la wadaageen? waa ku dhowahay in la raajicoon saakay ilaa xalay waxaan ku jirnay arin aad u xanuun badan oo dhacday, aad u xanuun badan. gabar aan abti u ahay inta la kufsi wareed iyo dil loo sii geystay. laamaha amniga oo nala wadaagay xog yar waxay noo sheegeen in ilaa saakay ilaa hadda ay qabteen dad ilaa 6 qofood lagu qiyaasay oo 2 dumar yihiin, oo dadka hoteelka iyo ka shaqeynaya tahay, oo ayaga xogtaas ay nagu soo gudbiyeen. gabadhana sidaan macnaha baaritaanadii ku sheegnay waxaa kufsi loogu geystay 2 nin ilaa 3 nin oo kufsi wareed u geysteen. dadka la xiray waxaa ku jiro 2 qof oo dumar ah, laakiin gabadha waxaa kufsaday rag oo ah. qisadan horta waxaan ku arkay qoraal iyadoo ah facebooka oo ku qoran tahay dadka kufsi geystay, midna iyadoo asxaab la ahay, qofkaas ayaa balamiyay ama qof oo shukaansaay wuxuu ahay ma ogi, qofkaas ayaa balamiyay, qofkaas ayaa u imaada meesha. then kadib waxaa la isku dayay in la kufsado, dantay lahaayeen way u suurto gashay, way kufsadeen. dil ayaa loogu sii daray oo hoteelka ayaa laga soo tuuray ama dabaqa. dowladdan waxay dhahday dadkaas soo qaban waxaa ku jiro 2 qof ama shaki loogu shakiyay. laamaha amniga waxay dhaheen dadka shakigan oo yani laga shakiyay waxay ku jiraan 2 qof dumar ah iyo qofka hoteelka iska lahaay iyo 3 qof kale. laamaha amniga marka intaas ay noo xaqiijiyeen oo waliba ay dhaheen hordhac ahaan intaas ay noo siiyeen. waa ka rajaynaynaa inay cadaaladda iyo raggii kufsigaas geystay inay cadaaladda keenaan oo dadka soo hordhigaan. sida la sheegay daawadayaal, dabaqan aan ag taaganahay waa dabaqa la tilmaamay in laga soo tuuray xamdi maxamed faarax
oo ah gabadha la kufsaday kadib dabaqa laga soo tuuray sida ay sheegeen booliiska Soomaaliya baaris ayaa haatan socoto xamdi waxa ay ku nooleed xaafadda raadeerka degmada Daynile ee gobolka Banaadir bal fiiri dabaqa laga soo tuuray sida uu dheer yahay su'aalo dhowr ah ayaa wali ku gadaaman dhacdadan kufsiga la xiriiro xamdi Allah u naxariistay maanta waxa lagu aasay xaafadda raadeerka degmada Daynile ee gobolka Banaadir horta run ahaantii gabadha waxay ku nooleedahay lahayd Daynile laakiin waxaa dilka ka dhacay degmada waa beri ajisheeda ayaa intaas ku jirto horta run ahaantii qofka marnaba ma oga meesha oo dhib ka soo gaarayo waxaa laga yaabaa dan inay u imaaday waxaa laga yaabaa qofkaas bilami dartiis inay u imaaday oo ismale qafay ka fiilaysa ma aheena laga yaabaa horta run ahaantii dadka muuqooda markaa wada arkaysid waa isku wada mid ilaa horaa waxaa loo dhahay badda waxaa uriya hal malaay soo marka horta ilaah u naxariisto gabadhan Soomaaliyeed walaasheena aa u wada duceynaga mudan tahay tan kale dadka dambigan geystay dawladda isla marka hore ma la soo qaban karo waqti ay qaadanaysaa laakiin codsi waxa ah inay sida ugu dhaqsiyaha badan u caawiso shacabkeeda waa xilli ilaahay waa la soo gudbo dawladda lugaheeda ma ku taagno of course hadda lugaheeda ku taagan tahay ciidan kasta oo kale nooc ay leedahay dambi baaris ay leedahay yani ciidamo u tababaran sida dambiyada waxa sida loo baaro ay nooc soo marka insha Allah ilaahay waxa ka baryaynaa gabadhan masaakiinta jannada inuu ka waraabiyo dadka dambigan u geystay ama qaladkan ku lug lahaayeen ilaahay inuu cadaalad ka soo xaqqa ka soo ifiyo soo marka wallahi wax kala dhoo ma aqaan laakiin run ahaantii qiso aad iyo aad u xanuun badan waa murugadeeda leh qof kasta oo bil aadan oo naxariis niyadiisa ay ku jirto ama qalbigiisa ay taawanayso qofkan adduunka way u dhaafinaysaa waa qof mustaqbal ku leh waa qof rajadiisa ay hortaalo oo hadii nolol kow u tahay rabta inay heer gaarto rabta inay guursato rabta inay oolaadeeda aragto wax kasto wax kasto oo ilaahay u suurta geliyo oo iidan u fiican u wanaagsan inay kamira dhalis rabto soo marka run ahaantii ilaahay u naxariisto gabadhan dawladana ilaahay waxa ugu baryayaa inuu garab ku siiyo si ay u soo qabtaan dhurwaayaashaas ilaa ma lihi kara qof bil aadan qof dhibkaas geysanaya gabar walaashiis inuu kufsado hadana dil uu sii daraayo dabaq ka soo tuuraya soo marka insha Allah ilaahay xaq ka soo ifiyo bisaa dhigana wax kala dhaan malan ina u duceeno ilaan ma ognin anaga xataa qofka dhibkaas geystay qofkii ogna inuu dawladda u gacan geliyo soo marka insha Allah inta kulmayna videoga xigna waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo